السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي أصحابتي وقالقة دمانتين سولو دوادا وحاد ليهاي أصحابتي قالقة مر كواد iyo mar labaad iyo mar saddexaad inta waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan sida aniga oo caafimaad qabo taada kaleeto waa sida hore ugu ballan qaaday inaan sabtiga axadda aan soo dayi doono su'aalo iyo jawaabo qofka su'aalahaas ku guuleysan doono lacag ku guuleysan doono iyo hadiyooyin haddii macnaha meeshaan degannahay ama gobolkaan degannahay ee qofku nala degan yahay hadiyuu helayaa iyo lacag intaba qofkii oo meel fog jirana in lacagta kaarkiisa loogu soo diri doono taleefankiisa macnaha marka asxaabtii waqaaliga horta marka hore waxaan idinka codsanayaa hadduu janalkaas subscribe uuna ku ahayn inaad subscribe garayso gambaleelkana aad furatid sida aad uga soo qayb gasho su'aalaha iyo jawaabaha soo socda hadduu ilaah yiraahdo hadda aniga waxaan ka cudur daaranayaa sabtiga wuu idhaafay mashquul ayaan ahay sidaas la-aaligeeda maadaama aan mashquul ahayne waxaan leeyahay mashquula ahay jaanisna waan waayey aan kusoo galo marka saas la-aaligeeda waan ka cudur daaranayaa inuu sabtigii dhaafay laakiin maanta oo axada oo ilaahay haleeshiisiiyey inaan macnaha ka guuleysto raadnaqda marka waxaad leeyahay fikraddan waxaa iska leh hal abuurkeedana leh inaan soo dayno hal xiraalo dadkuna ay isku dayaan inay soo furaan janalkeena ku xiran maxaan dhahayay wiilkayga sakariye ayaa iskale fikraddaas maasha allah waan ku raaxsanaa anigana inaan janalkayga soo daayo su-aalaha asaga ayaa noo haaya aniga ayuuna iisoo dhiibtay soo saaraha macnaha su-aalaha waxaa soo hindisay oo kasoo fakiray waa sakariya anigana waxaan leeyahay inaan insoo bandhigo oo janalkayga soo daayo marka su-aalihii waxaan rabaa inuu si saxa uga soo jawaabo laba su-aal oo hadda noo soo dhiibay labada su-aal waa marka ugu horeysa oo su-aal lasoo dhigo jawaabteedana aan ka sugno dadweynaha marka su-aasha ugu horeysa waxaa waayey saddex nolosha kuga adag tahay haddaa weydo waan kusoo celinayaa saddex noloshu ay cariiri tahay haddii aad weydid la-aantoodana farxad aada heleynin hadda asagaan uga fadhinaa inuu hadhowta noo soo furo hadduu ilaahay yidhaahdana anigana waa idin soo fariisan doonaa haddii maxaa dhahay qof soo furo la waayo jawaabta asagaa looga fadhiyaa inuu dadweynaha usoo jawaabo marka walaalahayga qaaliga in isheeg waxaan rajeynayaa aad kasoo jawaabdo tan labaad waxaa waaye waa wax caruurta yar iyo dadka waaweyn intaba quseeya waa maxay jacaylku waa maxay waaye waa laba su-aalood oo midda kaleete ee ka muhiimsan taha waaye aniga xaggayga waa muhiim saddexdaasna waa wax muhiim ah noloshaadu ku yiri saddexdaas kama maarmi kartid haddii aad weydane nolosha farxadeeda way kaa daboolmaysaa noloshana cariiri ayay kugu noqonaysaa saddexdaas daaweysida ku yiri waa fahanteen u malaynaya dadkaas qofka ku guuleysta labada su-aalood inuu kasoo jawaabana wuxuu sii doonaa abaalmarin halkuu rabo adduunyada ha ka joogo halkiis ayaa loogu soo diri doonaa qofka guuleystaha su-aashaas kasoo jawaaba waxaana waaye su-aashaas waa idinkugu soo celinayaa saddex aadan ka maarmi karin noloshaada haddaad weydan murug aad ku dhamaysanaysid oo yiri saddex haddaa weydid nolosha ay xaraar tahay wir ayna macaaneyn yaa ma fahanteen u malaynaa tan labaadna waxaa waaye walaaleyga qaaliga waa maxay jaceylka waa maxay waxaa lagaa rabaa inaad micnaysid sida uu kuugu imaan karo iyo sida ku yeelan kartid iyo sida ay maxnaa oo ku saameyn karo iyo sida uu qofka jaceylka waa inaad faahfaahisid oo sida loogu talagalay ama jawaabtiisa ay tahay ka bixisid jawaabta ay tahay macnaha jaceylku waa maxay
jawaabtaasaa lagaa rabaa inaad labadaas su-aalood kasoo jawaabto si toos ah. ma aha inaad inta hal su-aalood ka jawaabtid halka kaleetana aad dhaaftid. waxaa la rabaa labadii su-aalood inaad kasoo wada jawaabto, waayo waxay samaysaa way kaa halaabaysaa haddii aadan sameynin macnaha ii sheeg tii kaleeta aadan sameynin oo hal aad ka jawaabtid halka kalena aad waxayso wax hadiye ah ma helaysid buu yiri. waxaad hadiyad helaysaa markii aad maxaan ku rahdaa aad labadii su-aalood aad isku xirto si toosana aad uga jawaabto, si saxana aad uga jawaabtid. laakiin si sax hadaad uga jawaabin wuxuu ku leeyahay ma helaysid hadiyad ama wax lacag ah ma helaysid. teeda kaleete qof walba oo rabo inuu su-aalahaas kasoo jawaabo, teeda kaleete beejkeena facebookana waa soo dhigaynaa, boga aan ku leenahay facebookana waa soo dhigaynaa su-aalaha si aad maxaa la dhahay lambarkaaga aad noogu reebto wixii aad ku guuleysatana aad qaadatid. youtube-kana hadaa rabto lambarkaaga waad noogu reebi kartaa, barteena facebookana waad noogu reebi kartaa. waana Hidaaye Xasan. sawirkeygana sawirka youtube-ka ii saaran wuu saaran yahay, waa waadax, qof kasta oo isku dayo wuu helayaa. marka asxaabteedii qaaligaa hada dadaal wacan, shaqo wacan. waa labadaas su-aalood keliya, laakiin sabdiga soo socda iyo axadda soo socda hadduu ilaahay yiraahdo su-aalaha way kasii badan doonaan. waxay noqon doontaa 3 su-aalood ayaa laga dhigi doonaa, laakiin caawo waxaa waaye wuu noo soo gaabiyey, wuxuu nooga dhigay 2 su-aalood. marka labada su-aalood waxaa looga baahan yahay in laga soo jawaabo hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan rajeynayaa inaad ku guuleysan doontaan qofkii isku dayo. lambarkeyga facebookeyga lambarkeygana waa kusoo hoos qori doonaa. qofka whatsapp haysta waa inuu whatsappka igala soo xiriiraa oo whatsappka igala soo hadlaa. qofkii maxaan ku rahdaa facebook haystana waa inuu facebook igala soo xiriiraa. bogeena facebooka Hidaaye Xasan. hadduu ilaahay awooda badan ka raali noqdo instagramna waa leenahay, snapchatna waa leenahay, meelahaasna waa nala soo xiriiri kartiin. waxa dhanna waa isku wada magac, waa magacayga waa Hidaaye Xasan. marka waa kaasaa hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan leeyahay guul wacan. dadka isku dayi doono su-aalaas inay ka jawaabaan waxaan rajeynayaa inay fudud u noqon doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo. haddii aad weydiinne jawaabta waxaa looga fadhiyaa si keliya hadduu ilaahay ka raali noqdo. marka waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga isku day wacan. waxaan rajeynayaa si sharaf iyo nidaam leh taxadirna oo ku jiro inuu qof walba isugu dayi doono uu kasoo jawaabi doono. haddii jawaabtooda aad weysiine hadda waxaan uga fadhinaa qofkii noo soo dhiibay oo maxaa dhahayey diyaar u ah inuu ka jawaabo. bulshada isku dayda ee fahmi waaya inuu soo jawaabo hadduu ilaahayga awooda badan ka raali noqdo insha allahu tacaala. waxaan idin leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh hadduu ilaahay ka raali noqdo. idinkana waxaan leeyahay isku day wacan. waana idin salaamaya walaalahayga qaaliga. waxaan leeyahay gambaleelka furta subscribe saarta si aad su-aalaha iyo jawaabaha uga soo qayb gashaan insha allahu tacaala. like noo saara, share gareeyna asxaabtiin la wadaaga, comment qurux badan ka bixiya insha allah. qof walba oo isku dayana commentiga ha noogu reebo sida uga soo jawaabay si aan ogaano, ama maxaa dhahay beejkeena facebooka insha allahu tacaala. waan salaamaya. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.